بنجر وتضب يتبنجر ووحك سير يوح مركاك وين وضمر برقبة هدنا قاوم بوير النبي صلى الله عليه وسلم نمعض الليل بسيهين شكر ذيك قاويهين درجس كود إيه جسد كود إنعبنيان إنعنا ويقريان قبدا إيمان دون أي رسول كده صلى الله عليه وسلم ودر لأيهين هدنا دربي قبان درع بي وضطا صدر كذا لدريمي كرا لصفين كرا عدان إيا مذو إيا قدود وح الله لوحا يهي وحال أركيا سلسلة إيا كتينة أحرا وضمر نوعاس ضدك أي إيلان أيغن حقيك إليهين ومد إليحين ينبض إلى سبحانه وتعالى وحيك الليحين يان حق إيا طاعة إيا الدين تأله رقي مانتا إنبضا ضمر بافدنيي وحينا كفدنيين أمرك الله يقاذا وايين وحي كفدنيين حجاب كي لبسا وايين وحي كفدنيين عطر يبرفون أي بنانك الله صبحين وحي كفدنيين هذا الججبان أو آديات وجلعصن وحي كفدنيين وح الله وحي عذاب الله لوهي لها سبحانه وتعالى دمروا إنبضا حشوضا وردمروا حقي طاعة ألا كدذالا مجتمع دمر بالغ فيريا هدي هقاقان مجتمع وهقاقا دمركو هدي حماضان مجتمع انتي سكلا وي حماضان معاوي بن ابي سفيان با منبرك النبي كو استاغي باشان بركدي دمركو قاتان بو غعنتكو قبتي وحو يري اهل المدينه اوي علي مديني ورا وددكي حق ددك غارسينايي ورا وددكي دينك الهي ددك غارسينايي باشان مركي دمركو يشان ايا لهلاغا رسولكنا حديث ايوكو يري ادونكو ومعان يحي معانك عربكا جعل صاد لا سوعتان ادونكو عقارن يحي عقاركنا اندها جعل لبدبا ادونكا لغو سو كلميي الهي خليف ايو اذن كغا دغاي اسغو ربا انو ايغا كيف تعملون صاقو عمل قبنيسان فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وركع عبسد ادونكا دمركنا كعبسدا fidnadooda aad iyo aad uga cabsada war qabta in badan oo guryaha galiya war in badan u diida tabarrujkii safarka mahram la'aanta war in badan ha u ogolaanina inay banaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn war wax badan ha u ogolaanina inay meelaha fisqiga aadaan war wax badan ha u ogolaanina waayo fidnatii ugu horeysay ee reer bani israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid way isqaawiyeen soo kuwayna maanta isu qaawiyeen maxalla ayay samaysteen sida kuweena maanta u sameeyeen aroosyay ka ciyaareen sida kuweenay uga ciyaaraan buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuweena diin uga dhigteen in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeya naftiina in badan jalaabiibta islaamka qaata war aayad ilaahay oo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo basraacaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqa ka adeeganaysa noqda walaalayaal in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaala saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya saad diinta allah u nacdaan bay jannadu inay nacaysaa saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaa u jeclaataan ya ibliis iyo shaytaan idin jeclaanaya haddii kale rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin xaqana dadkay ka iilayaan warka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin afka gudud marsatay dirac qafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata laamiga intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal soo ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan soo ma arkin inay idin fiirinayaan waa maa'ilaat way iilan yihiin dadkiina xaqay ka iilayaan war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan war sabab u noqda raggu inay hanuunaan mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko yay malaa'igtu ku farxdaa xasanaad loo qoraa rabbi jeclaada shaytaanku ka cararaa laakiin kuweena maanta shaytaan baa saaxiib la'a war saaxiibnimada shaytaanka gooye xiriirka ilaahay hagaajiya sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kurskiisa oo kale oo iilan
wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam. naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye xataa udugeeda heli mayso. naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo. tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay. tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhuxulla looga dhigayaa cadaabka. mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa طعام looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala. waxa la cabsiinayo oy adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa. laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday waxa ka yimaadeen dheecaan ah kaasaa sharaab looga dhigayaa. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarka in badan ayuu la hadlay. waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo, in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino, in rabbi subxaana wa tacaala laga cabsado, khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo. dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin. ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna. waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo. moodeelada maanta soo baxay iska ilaaliya. waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan. way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollonkeedaa bannaan. way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa. way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya. way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dheggan. xaaladda noocaas ayaynan dhicin. gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay daacada alle ku dadaal. waad u jeeddaa nebi muxamed inuu janno leeyahay geli mayso. waad u jeeddaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada. 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada. intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina. dumarkii maanta qaar baa ololaynaya. waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo. war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin, war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay, war haddii muxamedun rasuulullah aadan ka tegaynin, mar kastoo xayi cala salaad aad maqashaad salliga ku istaagayso, war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso, haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo, meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo, qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo, waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye? war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay? ma in la qaawiyaa? ma in xafiis la fadhiisiyaa? ma in nin u soo galaa? ma inay sirwaal qaadataa? ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa? xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa. war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray? war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gawmaha iyo ciyaalku ay soo kacayaan. inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray. ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذه قبر لو دل وحماناي وجهيسا مذوباناي قبر لو دلي واحد مودا تضباط العنضات إني وجهك كسارنتهي. ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بنانك مصوبح يوايا قبر بالو دلي واحدين كدندرنا مجري واحدين كفول حمام مجري ولا ليال. aabihii ku dhalay hadduu ragga iska qariyo, aabihii ku dhalay hadduu iska qariyo dadka, hadduusan akhyaarta soo ag fadhiisanaynin, hadduusan dadka akhyaarta ag imaanaynin, yatawaaraa waa dhuumanaya waa isqarinaya. xumaantii loogu bishaareeyey laba mid bay ahaan jirtay: ayumsikahu calaa huun am yadussahu fi turaab. inuu ciidda isaga duugo waxaan xunay dhashay, inuu carada isaga aasa ayadoo nool intaa ka bacdi, amase inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin. labadaa mid ayay ahaan jirtay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. dullinidaa loo dhalay ayuu diidan yahay. ayaduu rabaa inuu xabaalaha isaga aaso. qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen, ay dar u soo labiseen, ay dahab u soo geliyeen, godna ay u soo qodeenuu wadaa. garkay ciidda ka tirtiraysaa oy leedahay aabbe aabbe, asna wuxuu u wadaa inuu godka